way khadan bal waxa aad noo sheegtaa sida aad wax u qabto iyo naafanimadaadu siday tahay walaal hayo walaal maxamed aniga naafanimadeedu waxa weeyaan waan ku dhashay ilaa markii aan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ku dhashay dhowr saacadood kadib baa la ogaaday in qayb jirkayga ka mid ah naafo tahay qaybtaas oo ahayd labada lugood labada lugood waxba ma qaban awood way leeyihiin buuxda laakiin waxa jirta miskaha oo halka laga socdo ayaa ay ku jirta xanuun kaasoo aan ii saamaxayn inaan socdo hooyaday markaan 6 bilood jiro waxa lagu taliyay in ay Djibouti ama Ethiopia midun igeyso inay wax ka qabadan yeelan karayo laakiin xaaladii wadanku markaa ku sugnaa iyo family-gayga xaalad ahaan oo awood u lahayn inay wadamada loo magacaabay geeyaan ayaan ii suurtagelin ilaa iminkan wali wax caafimaad oo helay ma jirto saadarteed baan inaan birihii wadanka wixii yaala qalabe aan ku socon karayo oo ku socdo ay suurtagal iigu noqoto khadan Axmed Yuusuf waxa tahay dadka aan ugu talagalay barnaamijkan in aanu ku dhiirigelino isla markaana awoodahooda iyo waxqabadkooda iyo kartiyooda ku soo bandhigno imika waxa tahay qof dhigta jaamacadda sida aad noo sheegtay jaamacadda Hargeysa waxaad barato iyo higsiga nolosha ka leedahay dhawaan muxuu yahay runtii waxaan bartay waxa weeyaan shaybaarka jaamacadda Hargeysa aan ka barto anigoo sanadkii 3aad hal sano bay haday in higsiga aan ka leeyahay nolosha waxyaabo badan weeyaan runtii waxyaabo badan bay ka dhaxuuxa yaraanteed waxaan jeclahay inaan dhakhtarad noqdo markaan dugsiga hoose galay ahmiga waxbarashadeedu waxa ahaa inaan dhakhtarad noqdo haddana markaan imika soo dhex galay bulshooyinka dadka naafada hami kale ay galay kaasoo ah inaan dadka naafada caawiyo habeenada kamid ah waxaan ku fikiray inaan abuuro barnaamij caawimaan dadka naafada ku caawinayo waliba intooda tabaalaysan barnaamijkaas oo u bixiyay u hiil walaalkaaga naafada kiis ugu horeeyay uu ii hirgalay anigoo maamo naafa oo tabaalaysan ugu iibiyay mootadina ay hadda ku socoto alxamdulillah hamigayga kale waxa weyn inaan dhakhtarad noqdo walibana caawiso dadka naafada ah iyo inaan noqdo qof diinteeda ku talax tagta oo in badan cilmiga diinta ka barata alxamdulillah in badan oo bartay cilmiga diinta waxbarashada caafimaadkana waa ku dhex jira barnaamijkaygana aan bilaabay u hiil walaalkaaga naafada ana qaybtiisa koobaad oo ii hirgashay insha Allah qaybaha kalena inay ii hirgalaan man jecel ilaa aan ka gaadhayo anigu waxaan ku daydaa Cabdimaalik Muuse Coodan barnaamijkiisa kaalme kuwan ee samafalka kaas ay ii higsiyo hoosteed intaba